waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo ahludiin ah aqoonna u leh diintiisa. Xiriirka kala dhexeeya xaaskiisa wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan. Niyad wanaagiisana baasweedka Facebookgiisa ayuu wuxuu siiyey naagtiisa ayadoon ka codsan, waayo wuxuu yaqiinsanaa in aysan jirin wax uu qarinayo. Kadib ayadana waxay siisay baasweedka Facebookgeeda. Maalmo kadib, zawjada ma aysan ilaalin ammaanada uu ninkeeda siiyey. Waxay ku kadisay inay la xiriirto dhammaan gabdhihii uu wax la soo bartay iyo kuwii ixtiraamka ka dhaxeeyay oo xiriirka kale aan ka dhaxayn iyo kuwii la shaqeynayay. Waxayna ku noqotay dhabarjab aad u weyn, waayo dadkii oo dhan ayaa ku canaanteen oo ku qayliyeen inuusan ilaalinayn waxyaabaha gaarka ah. Kadib shaydaanka ayaa ugu sheekeeyey in naagtiisa uu furo. Hase yeeshee Allah ayuu ka magan galay, wuxuuna ku kaaftoomay in uu canaanto. qaladkan ay gashayna wuu iska cafiyey. Maalmo kadib ninkii wuxuu ogaaday Facebookga naagtiisa dhammaan wixii ku jiray oo rag ahaa, qaraabo iyo asxaab in laga tirtiray. Ayna ku kaaftoontay naagtiisa salaan oo keliya ay salaanta dadka. Sababta ay u tirtayna ma uusan weydiin si aysan ugu malaynin in uu faragelinayo nolosheeda. Arrintana sidaa ayay ahayd. Ilaa maalin uun lagu kadiyey in ninkeeda oo ka soo laabtay shaqada si kadis ah, xanuun oo xanuunsanaa darteeda. Wuxuu arkay naagtiisa inay hurdeyso, kombiyuutarkana uu furan yahay. Wuxuu ka dhex arkay sheeko jaceyl oo aad u dheer. Ciwaankii ay isticmaalaysayna waa uu ka duwan yahay ciwaankii uu yaqaanay. Waxaa lagu kadiyey in uu saaxiibadiisa dhan uu ku arkay inay meesha ku jiraan. Markaas ayuu ninkii qayliyey. Naagtiisa ayaa hurdada ka soo kacday ayadoo naxsan. Markaas wuxuu ku yiri, waad furan tahay, allaha lacnado internet iyo waxa uu keeno oo burbur ah, caqliyo oo si qaldan u isticmaalaya sababteeda. أم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.